shacabka Soomaaliyeed soo dhawaadaan idin leenahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibid meel walba ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego soo dhawaada salaan aad iyo aad u qiimo badan salaan wadaninimo salaan Soomaalinimo iga gadooma ee wax ka dambeeyo salaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax ka weyn oo ogahay haba yaraatee ma jirto intaas kadib maanta waxaan rabnaa inaan diiradda saarno gadoomiyaha aqalka sare oo runtii weerar qaawan ku soo qaaday midnimada ummadda Soomaaliyeed oo aan u aragno gadoomiyaha aqalka sare ummadda Soomaaliyeed markii hore isaga dhigay nin wadani ah ayaa maantayto runtii ceebihiisii ilaahay subxaanahu wa tacaala bannaanka keenay ummadda Soomaaliyeedna markii la arkayna gadoomiyaha waan ka daba tagnay runtii ilaahay baan ugu dhowaanaynaayo waan ka daba tagnay baaris dheer kaamiran ka daba qaadanay gadoomiyaha culays baa saaran ilaahay ka dulqaado asagaa culays minallaahi ah oo runtii wakhtigan xaadirka ah uusan sheegan karin wax la yidhaahdo gadoomiynimo aqalka sare sababtoo ah waan sababaynaynaa maxaa yeelay dariiqii allah u naxariistay brofesor jawaari buu qaaday markaan ku leeyahay allah u naxariistay jawaari inuu dhintay ma ahan laakiin siyaasadda xaggeedii wuu ka dhintay maxaa yeelay markii odayga adduunyada tuuginimada iyo corruptionka iyo xatooyada iyo ma arkino dabadhilifnimadu waxay ku fiican tahay markaad da'yar tahay oo laga yaabo inaad ilaahay u toobad keentid towbada ilaahay way furan tahay allah subxaanahu wa tacaala towbadiisii way furan tahay ilaa maa qoraxdu ay ka soo baxdo meeshay u dhici jirtay ilaa maa nafta qofka bini'aadamka ah oo ay hataa idaa balagatil xulquum halkaan ay soo gaarto towbadu ilbaabkeeda wuu furan yahay marka khaatamu xumada iyo dhibaatooyinka noocaas oo kale jaajuusnimo qof da'yar oo laga yaabo haddiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala cimri dheer uu siiyo inuu soo hanuuno laga yaabo ayay ku fiican tahay laakiin nin weyn oday ah oo ciro leh oo dadka ugu da'da weyn oo laysdhihi lahaa ninkii lagu daysan lahaa ninkii la dhihi lahaa ninkan talow bal Soomaali nin isu keeni kara waaye waa oday Soomaaliyeed aakhiradii xaggeedu u dhowaaday aakharu u dhowaaday oo
odiga yani muxuu ahaa maadaama qof aakhare u dhow u yahay mar walba nin cabsi iyo wax walba ku jira inuu noqdo ayaa laga yaabi lahaa sooma marka wuxuu noqday Cabdi Xaashi waxa waaya odi Soomaaliyeed oo wax badan soo halgamay oo laakiin halgankiisii ku dhammaaday habaa'an manhuuran qalbiga ummadda Soomaaliyeedna dhibic madow buu ku reebay dhibic madow ayuu saaray quluubta ummadda Soomaaliyeed ee wadaniyiinta maxaa yeelay odigan kolba waxay saaxiibo ahaayeen odigii adeerkay ahaa Maxamed Cabdi Yuusuf ayay saaxiibo ahaan jireen ninkaasay isku agdhawaayeen ninkaasaa runtii ummaddan Soomaaliyeed waraysiyo ayagoo hadda ka hor Soomaalinimada laga qaaday aan aragnay ayaa ma arkayno kolba marka bini'aadamku inta badan waxaa bedeli karo qalbigiisa rogi karo wax la yiraahdo dhaqaalo laakiin dhaqaalaha nafsadiisi wuxuu u baahan yahay caafimaad buu u baahan yahay od ku cuntid wuxuu u baahan yahay yani ejka qofka bini'aadamka waxa waaya waqtigiisi waa safety oo kala waay qarniga Maxamed Cabdi Yuusuf ma noolo Cabdi Xaashi aan maxaa Cabdi Xaashi qarnigii waqtigii laaluush iyo maarkii muxuu ahaa imaaraad dhiil la geli lahaa waqtigaas asaga Maxamed odiga waa soo dhaafay maxaa yeelay khaatamo waay markii hadda maanta ay to haddii marka adigoo ilaa intaasoo sano Soomaalinimo raadinayay oo dalkaaga badbaadadiisa meel walba u fariisan jirtay khudbooyinkaaga tirada badnaa oo maanta ay to recording oo la wada hayo haddii maanta ay to aad u soo jeesato inaad corruption iyo maarkino musuqmaasuq aad wax ku raadisid oo haddana qabrigaaga lacag xaaraama lagu qodo runtii waxaa waaye waa khaatam xumo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka hadduu ilaahay man yahdillaahu falaa mudilla lah waman yudlil falaa haadiya lah yaa qofku yacni haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lumiyo qof bini'aadam ah oo hanuunin karto oo jidka saxda ah tusi karto haba yaraatee ma jirto Maxamed Cabdi Yuusuf odiga Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed qof wanaagsan ay u haysteen maantayto yani damiirtiisa waxaa siisay inuu maanta kala garan waayo guddiyo inuu soo magacaabo war guddiyadu uu soo magacaabayo yani inuu kala garan waayo guddi imaaraad guddiyo yani la iibsaday la gatay imaaraatis iyo Kenyaan iyo Soomaali buu kala garan waayey dadku uu soo magacaabay waxaan ku leenahay Maxamed Cabdi Yuusufow muxuu ahaa magaciisa maxaa Cabdi Xaashi mu ahaa warmaniyow balaayada Yuusuf Maxamed kibay ku wada kulmiinaan u maleynaa odiga kale asiga odiga waxaan leenahay maxaa Cabdi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare ninka ah waxaan leenahay adeer shame on you baan ku leenahay inaad maanta ito fartaag yaa waxaan rabaa inaan weydiiyo Maxamedow yani deegaankan in muddo waa lagugu sharfay runtii Muqdisho kamaadan qixin rag baa madaxoodii aad ku nooleedoo ku joogtay magaalada Muqdisho burbur baa dalka soo maray dowlad la'aan baa dhacday kalahaad baa dhacay gabadha dumaashaday ah khayr laha siiyo oo marwadaadii ah oo yani muxuu ahaa Xaaji Muuse Suuday Yalaxow la dhalatay oo anigana dumaashaday ah yani waxa waaye abaal weyn bay kugu leedahay laakiin waqtigaad abaalkoodii gudi lahayd magaaladooda sumcadeedii aad ilaalin lahayd ayaa waxaa maantayto la taagan tahay burush xaar inaad marisid sharaftii iyo karaamadii ummaddii intaasoo sano aad ku hoos noolayd caasimadoodii markii ilaahay xaqii firaha ka dilaacay oo doorasho qof iyo cod 5 million people ku nool oo maanta degmo dadkeeda loo baahan aysan jirin reer diinsor haddii loo baahdo xamar ay joogaan haddii loo baahdo reer baashi maxaa la dhihi jiray reer qansax dheer xamar ay joogaan haddii loo baahdo reer laascaanood xamar ay joogaan haddii loo baahdo reer gaalkacyood waxay joogaan xamar ummaddii Soomaaliyeed magaaladii kulmisay oo maantayto doorashadii qof iyo cod inaad arqaladaysid daraaddeedii baarlamaan macnaa guddiyo Kenyaan ah
iyo ma arkino muxuu ahaa cadow soomaaliyeed ah fartaag iyo cabdullaahi cabdiguruun odigaan miskiinko jaahilka oo aniga ila dhashay oo adeerkay ah cabdullaahi cabdiguruun baa la yidhaahdaa yacni qarnigiisi ma noolo meel loo socdo iyo meelay wax ka socdaan iyo arrimaha haddeertan loo diray iyo howlaha ad u dirsanaysid nin wax ka og ma ahan oday miskiin ah waayeel ah wakhtigiisa dhammaaday waa reer digli miriflo waaye yacni ayaa maantayto waxaa tidhi bal xataa mal dadkii hataa hawiyihii damiirta lahaayoo deegaankan u badnaa ama dadkii deegaankaas deganaa u badnaa yaanan dhihine siyaasiyiintii deegaankaas oo yacni wakhtigan xaadirkaa joogay oo xaadirka ahaa oo uu ka mid yahay xaaji muuse suude yalaxu oo kale waad iska reebtay macnaha marka maskaxda marka cabdi xaashi waxaan rabaa inaan faahfaahiyo maxamed muuse ayaa arrinta si fiican u dul istaagi doonaa laakiin aniga waxaan rabaa daraftigeedii baan leeyahay waan daraafgarayn dadku inay wada arkaan baan u baahanahay waxaan rabaa inaan daraafgareeyo waa drafting way waxaan anaka aan wadno ma ahan wax kale insha allahu tacaala hadduu ilaahay ku roon yahay waxaan rabnaa marka barnaamijku horta la sheergareeyo maantayto waxaa waaye insha allahu tacaala muqdisho ama caasimadda soomaaliya waan u hiilinayna maxamed cali waa ku salaamay walaal macaan saaxiibkay qaaliga aad baan kuu salaamay sheergareeya barnaamijku arrintu aad iyo aad bay culus tahay yacni dadka ilaahay guusha u keenay soomaaliya inay hoggaamiyaan la rabay ayaa dariiqii in laga lumiyo aaranjaan maamulka la yidhaahdo afkaar soo dhiibay inuu maxamed cabdi yuusuf maskaxdiisii besti lagu dhaho kadib asagana koobigareeyo oo soo birintigareeyo unsaxbalaad inuu dalkan iyo dadkan ummadda inuu yacni muxuu aha ku dhex faafiyo ayuu la yimid marka waxaan rabaa ummadda inaan u sheego maxamed cabdi yuusuf raadkiisa dib baan u raacnay horta maxamed cabdi yuusuf axmed madoobe ayaa abti u ah marka ugu horeyso hooyadiis waa maamo khayr allah siiyo ogaadeen ah oo runtii axmed madoobe ay qaraabo hoose ay yihiin waaye hadduu khayr keenayo marka axmed madoobe ayaa abti u ah markii axmed madoobe marka insha allahu tacaala fashilkiisii meel walbuu ku fashilmay meel uu u carara waayey cir iyo dhul ilaahay ka soo xiray maantayto uu yaaban yahay yacni meel uu magaaladaas kaga baxana aanan lahayn dhaqaale wixii uu haystayna ka baaba'ay ayaa maxamed cabdi yuusuf ka abtinimo yacni waxa waaye waxaa si fiican loogu soo borogaraamiyey ama uunsi lagu soo geliyey hoostiisii loo geliyey safarkii qaabka darnaa in muddaa uu turkiga ku joogay ayaa reer abti ay ka soo wada calaacaleen in yacni muxuu ahaa maadaama xisbiga nabadii nolol dalkan dib u dhisay meel looga baxsada la waayey dalkiiba ay gacantay ku dhigeen quluubtii shacabkii ay la wareegeen yacni dadkii reer laanda qabiil hebel iyo qabyaaladii qurunkii ay dhammaadeen ayaa waxaa dhacday maxamed cabdi odigan oo aqalka sare abtiyaashiisii baa ku ooyey oo runtii ay leeyihiin abti maanta wiilkeennii baa tahay meel aan u soconno ama meel aan aadno ma haynee maadaama aan ku dhalnay oo abti aan kuu nahayna badbaadi arqalad iyo jaajuus iyo maarkiino dabadhelifyo oo meesha aan ku leenahay nimankaas ayaga ah guddi nooga dhig arrimaha soomaaliya hadduu ilaahay kuu roon yahay si wada xaajood annaka iyo dowladda soomaaliya aan u wada yeelanno bal arrintaas ayadaa noo fuli buu yidhi mishinkaas si fiican ii dhegeysta ummadda soomaaliyed waxaan codsanayaa barnaamijyadii hore ma ahan yani waxaa waaye af jooga looma adeega hawiye asagaa hadli doono hadduu ilaahay weelaha walaalaha hawiye waxaa guddoomiyahooda hadli doono insha allahu tacaala waxaa kaloon soo dhoweynaynaa oo kuraajaan u leenahay cid allaale ciddii mowqifka maxamed cabdi xaashi odigan duqan aqalka sare difaaci karo ama wax uu ku difaac u hayo inuu meesha soo istaago waa loo baahanya hadduu soo wactamo waa ka qabanayna waa soo dhoweynaynaa waa qodob maxamed horta cillad culays waxaa ka saaran dhanka reer abtiyaashiisii oo runtii halkii maamul oo yacni kenyaanka ama yacni cadowga ummadda soomaaliyeed u afduubay in muddo ah meesha ay ku haysteen yacni waxa waaye oo haddana wakhtigiina gebageba uu noqday magaalada kismaayo maantayto ilaahay mahaddiisii waa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay oo farxad weyn ay ii tahay
in maantayto yani eelaboorka ciidamada dhexdhexaadka ee amisom ay la wareegaan oo eelaboorka magaalada kismaayo hadduu ilaahay ku roon yahay maantayto gacantii kenyaankii maamulkiisii ay ka baxday waa ilaahay mahaddiisi waaye maamulka waqtigan xaadirka waxaa si toosa ula wareegay ma arkin muxuu ahaa ciidamada amisom iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwoodii xaram cas ayaa toos ula wareegay eelaboorkaas asiga ahaa maamulkiisii marka hadda meeshii ugu wanaagsaneed mar dhow insha allah diyaarada caalami ah ayaa soo degi doono ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed baa gaari doono sidii loogu talagalay baa hawshaas ku socon doontaa waa ilaahay mahaddiisii taas waa midaas ayada marka barnaamijka horta 600 ruux sheergarayso arrintu waa arrin sahlan ma ahan waxaan ka hadlayna waa masiirkii ummadda Soomaaliyeed baan ka hadlaynaa marka ninkii odiga ahaa maxamed cabdi xaashi wuxuu kala garan waayey odigii adeerkeeni ahaa Kenyaan iyo Imaaratis buu kala garan waayey laakiin annaka weli dad waxaan nahay oo runtii jecel jiritaankoodii inay ilaashadaan dowladooda inay difaacdaan deegaanadooda inay difaacdaan ma arkino muxuu ahaa ishubo oo maantayto la daandaansan karin ayaa maantayto muxuu ahaa ummaddan Soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqaas ayay ku sifowday wada hadalka maamulka Somaliland waan soo dhaweynaynaa ummad inay daasho oo ay baaba'do aqliyan iyo maskaxiyan iyo cilmiyan ay u baaba'do oo ay soo daasho oo maantayto jamhuuriyaddii Soomaaliyeed laga maarmaan inay noqoto oo loo imaado oo apologize la siiyo oo ayagana loo madaxweyneeyo dad fiican baa tihiin intoodii caafimaadka qabto insha allahu tacaala hiil qarana waan kuu jeedaa wax yar ii dulqaado hiil qaran waa kuu jeedaa ii dulqaado insha allah waa kusoo qabanaya hadduu ilaahay idmo marka insha allah sheergareey barnaamijka la sheergareeyo hiil qaran bal aan kugu soo dhaweeyo odaygii hiil qaranow waan kaa hormarinayaa maxamed muuse gudoomiyihii beelaha hawiye oo runtii maantayto aad u xaraysan ba hadli doona laakiin soo dhawow adiga hore u sii gudugal dhib ma laha waxaan ma iga hormarisid ninkaasi madaxweynaha qaranka Soomaaliya inuu noqdaan rabnaaye ma iga hormarisid isaga tusaalooyin ka qaada marka asigaan kaa hormarinaa insha allahu tacaala haye waay haraba marka waa soo dhaweynaynaa arrintaas ayada insha allahu tacaala insha allah dhammaan inta onlineka 600 ruux waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo maxamed muusan soo dhaweynayaa inay ila soo dhaweysaan waa rugcadda Soomaaliyeed waa gudoomiyaha guud ee beelaha hawiye qaaradda Yurub iyo North America waa si fiican ii maqla wax kalena kuma hadli doono duulaanka cad uu ku soo qaaday caasimadda Soomaaliyeed Muqdisho maxamed Axmed hebel xaashi odigii aqalka sare ahaa hataa magaciis waa iga lumay wallaahi aad baan u xafisnaan jiray maxaa yeelay qofku markuu wadadii qaranka uu ku leexdo oo yani muxuu ahaa uu galo wadada yani daalan baciidan uu galo yani waa la iska hilmaama maxaa yeelay waa cadow Soomaaliyeed waa ninkii maantayto bal guddiida uu magacaabay keliya guddiidaas ma rabaa inaan hal aan u dul istaag wax yar ii dulqaat intaan gudoomiyaha soo dhaweyn horta sheergareey barnaamijka toonleenka iyo qabiilada ay kala yihiin ya guddiyuu soo qaatay muxuu rabaa marka xamar inuu dagaal ka dhacu rabaa maxamed ninkii la yidhahdo cabdi xaashi muqdisho maxaa yeelay wuxuu arkay dadkeedii dad iska yani muxuu ahaa aanan soo baraarugin oo yani lagu hoos kalluumaysan karo oo aanan lahayn hadaf yani muxuu ahaa fog aanan lahayn ayuu arkay macnaha dadkii reer muqdisho ayuu rabaa inuu ka dhex kalluumaysto burbur baa dhacay waa la hayay mas-uul baa laga ahaa xamar buu ku noolaa waxaa seedu ahaa xaaji muuse suude yalaxow xafidahullah hataa wuu ku soo dari waayey seedigiisii ayaa guddigii wuu ku soo dari waayey cabdi xasan cawaale qiibdiid oo lafdhabar ummadda Soomaaliyeed u ah oday Soomaaliyeed ah waa u diiday inuu ku soo daro macnaha yacni faroole iyo fartaag halkaas faroole iyo fartaag iyo nin kale ayuu meesha keenay kow meel qiibna asigaaba jaan number 1 ka ah asigaa number 1 iska dhigay raaxweyn wuxuu ka keenay wiilkan dhalinyarada oo yani wadaadkan oo aqalka laba nin oo Cabdullaahi Cabdigaruun iyo wiil kale oo Maxmuud muxuu ah Xuseen Maxmuud la yiraahdo oo reer Xudur ah labadaas ayuu ka keenay
walaalaha reer hawiyena intii maangaab amay noqon karaan uu isleeyahay waxaad doontid baad ku shuban kartaa uu isleeyahay afkaarta aaranjaan baad ku fulin kartaa uu isleeyahay ayuu keensaday yaa laga rabaa maanta inuu marka xamar ama yaa maanta laga rabaa inuu dalkiisii dadkiisii iyo diintiisii inuu u hiiliyo yaa laga rabaa Soomaaliya isweydiineen yaa laga rabaa waxaa laga rabaa maanta ito markhaati ka ahaado waxaa laga rabaa beelaha Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan hiilo maanta ayaga laga rabaa inay dawladooda ay u hiiliyaan maxamed abdi xaashi muxuu ahaa ninka la yiraahdo muxuu ahaa magaciis Allah tar asaga waaba tarmay dariiqii yani wuxuu maray dariiqii muxuu ahaa abdi xaashi Abdullaahi baa la yiraahdaa sorry axmed xaashim aheen abdi xaashi Abdullaahi baa la yiraahdaa sheer garay barnaamij oo allagu dhawaada maanta yaa hiilo looga baahay Soomaali maanta yaa badbaado ugu baahan Soomaali maantayto ayadoo maanta lugaheeda ku istaagtay dawladdan Soomaaliyeed waqtigan xaadirka ay jirto waxay u timid Soomaali oo saqiir yar ah ilmi yar oo yani muxuu ahaa rajo ah oo malnutrition ah aata ah oo fuuq baxay oo runtii yani muxuu ahaa soondo bahasha la yiraahdo sanka wax laga siiyo oo yani muxuu ahaa nutritionka uu ka qaato sanka soondo bahasha la yiraahdo markii ilmaha afka wax ka qaadan waay sanka wax cuntada laga siiyaa soondadaas sanka iyadoo ugu jirto Soomaali oo lafalafo meel taalo ayaa waxa Ilaahay u keenay nabadii nolol baa Ilaahay keenay waa yani muxuu ahaa buskud nafaqooyin baa cunto la siiyey si fiican cunto nafaqo leh baa la siiyey vitamins baa la siiyey ma arkin muxuu ahaa sharobooyin fiican oo quality leh baa la siiyey Soomaalidii way istaagtay way caafimaaday cudurkii iyo kansarkii iyo wixii Xasan Sheekh Maxamuud ku beeray baa yani laga daadiyay sababtoo ah qabyaalad chronic bay ahayd chronic ama markana waxay resistant Soomaaliya u noqotay qabyaaladu wixii baa la baabi'iyay markii la nadiifiyay oo qulubteedii la saxay oo qalbigeeda la dhaqay oo beerkeeda la dhaqay oo yani infection xun bay beerka xaqiisa ka qaaday ummadda Soomaaliyeed oo la siiyay sharobooyinka yani muxuu ahaa ama vitaminska B6 ma arkin muxuu ahaa B6 oo vitaminaadkaas oo runtii loogu talagalay anti hepatitis-ka la siiyay oo caafimaaday ayaa maanta wuxuu rabaa abdi xaashi inuu mar kale irbadii sunta ahayd inuu duro irbadii sunta ahayd la diidiyey abdi xaashow guddigaagii iyo adiga insha allahu tacaala Soomaali way idin diiday dariiqii wadaadkii adeerkay ahaa Professor Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari markii Abu Dhabi heshiis la galay lacagtii yareed ee ma arkin muxuu ahaa ay sirtay Soomaalinimada ka doortay asagoo khaatama adiga oo kala ah ayaa waxa waaye sidii dariiqii baad martay adeer ma marka garabkaaga la hagalo insha allahu tacaala reer xamar sumcadoodii baa meel ugu dhacday laakiin hawiye ayaga iska kaacelinayo waxa maanta sumcadooda inaad dishid aad rabto waa beelaha hawiye waay ee magaalada Muqdisho ku nool halkaas baa rabtaa inaad dagaal ka cilaamisid dhibaato ay ka dhacdo qalaalase meesha ay ka dhacdo dawladnimadii iyo iftiinkii ummadii Soomaaliyeed inaad demisid baad rabtaa laakiin adiga ayaa waxaan ku dhaweynaynaa qabrigaagi baan ku dhaweynaynaa insha allahu tacaala hala sheer gareeyo inta online ka barnaamijku hala sheer gareeyo aniga waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha guud beelaha hawiye qaaradda Yurub iyo North America Maxamed Muuse ayaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo barnaamijku hala sheer gareeyo inta online ka asigaana kolba hadee xamar waqtigan haadirka magaca hawiye assalaamu calaykum عليكم السلام مدن قدومي soo dhawow kolba hadee qofka loo dan leeyahay oo dariiqa saxda in laga lumiyo oo mustaqbalkiisa lagu ciyaaro karaamadii iyo sharaftii uu la soo baxay in laga qaato la rabo la baabi'iyo waa adiga iyo tolkaagi way soo dhawow aad horta waan dhawahay aad baad u mahadsantahay Ismaaciilow maanta waxaan canaananayaa tolkay horta kuso sheer garay hawiye la canaananayaa tolkiisi canaante waa gudoomiyihii beelaha hawiye waxaan u canaananayaa tolkay oo wakiilkooda ahay gudoonka hawiyana aan ka mid ahay waa marka ugu horeysa
dad raba inay dumiyaan oo ay daawanayaan waa gartay mar waxaan dhihi karaa waa dad goba aad iyo aad waa dad lagu dhex noolaan karo gob waa gob dhashay waay ka soco marna waxaan dhihi karaa waa dad maaragtay aan ogeyn xitaa waxay ugu fadhido qiimaha ay ugu fadhido doorashada cod iyo qof iyo cod aanan ogeynba waa gartay oo ay ghaafil ka yihiin oo ka cadee maaragtay anigu waxba ka ogeynba waayo ileen mar hore ayay ku dadaali lahaayeen inay helaan in codkooda ay ku ciil baxaan aad iyo aad waxaad arkaysaa horta waxaan maanta usoo halqabsanayaa qarnigii 19aad 1860 oo madowga Mareykanka ah la yidhi xor baa tiina iska socda waa gartay oo garan waaye meel alla meel ay tagaan saas waaye awiya maanta waxaan ku matelayaa dadka aanan ogeyn farmaajo xornimada uu siiyey uu yidhi war codkiina ku ciilbaxa suulkiina dhigta ajaa'ibat ad-dunya allahu akbar war sheergaray barnaamijka inta online ka sheergaray oo fahmi waaye micnaha ay ugu fadhido iyo meesha ay ugu fadhido iyo waxa ay ugu fadhido fahmina ilaa iyo maanta aad iyo aad fahmi waaye maqaamka ay raadinayaan in suulkooda uu ka xigo waa gartay si fiican maqaamka ay raadinayaan ay ku leeyihiin maqaamka xamar maqaamka cab war maqaamka xamar suulkiina idinka xigaan leeyahay hadhow doole marka doorasho timaado haddaad rabtiin waxaad u voodgaraysiin badgad dhulgad gabdhagad haddaad rabtiin kuwa u voodgareeya waa gartay laakiin waxaa ka horeeya in broseska laydiin furay ee laydinku talagalay in laydinku xoreeyo qaata oo ah one man one vote qof iyo cod inaan marnaba meel la marin oon la habaabin oon meel kale lama marin oo cabdi xaashe iyo faroole iyo oo ku dagaalamayey 2011 ayaa ismaaciilow waxaa la yidhi ID ha loo sameeyo xamar dadka degan ID ha loo sameeyo dhagaha furo waxaa lala hadlayaa dhammaan reer muqdisho lala hadlayaa muqdishona ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa ku wada kulmay sheergaray ID ha loo sameeyo ayaa la yidhi waa gartay ID-gi waxay ahayd arrimo quseeya ammaanka si loo ogaado qof walba meesha xaafadda intay tahay inta la degan yahay inta qofkee degan haddii dariiqa aad socotid lagu weydiiyo ID-gaaga saas waaye arrintii waxaa nimankii reer Garowe oo markaa tooshka ku shitay markiiba waxa u soo baxday in ay soo bixi karto numberka degan ee xamar degan aad iyo aad hadda waxa lagu marmarsiinayo tirakoobka leeyahay yaa tirakoobay seebaa loo codeynayaa 2011 vetoga waxaa saaray ragga nimanka ka mid ah ii sheegay Juruile oo uu ka mid yahay Faroole oo raggaas oo dhan raggii saaray weeye vetoga diiday in ID xamar la siiyo loo sameeyo si aynan u soo bixinba tirada degan xamar waa gartay marka horta anigu markaasaan ogaa maantana waxaa la keenay qaran dumis intii yareedee laysku dhadhabay ayaa la rabaa reer muqdisho in lagu duldumiyo waa gartay qisad yar baan idin soo qabanayaa maanta oo cajiiba oo ka dhacday Hargeysa ku soco sheergaray barnaamijka inta online-ka sheergaray 700 ruuxa ku daawanaysa 800 ruux ma garat war ka badiye war ka badiye 800 haday marba 900 ay ahaayeen 900 kun qof baa loo baahan yahay ka soco absolutely waxa weeyaan qisa yaroo ka dhacday Hargeysaan idin sheegaya oo nin walba meeshiisa sidoo u ilaashado saas waay xildhibaan la yiraahdo dhakool la yiraahdo waliga ma maqashay waa maqlay dhakool oo xildhibaana oo dhulbaanta ayaa wuxuu ku dhawaaqay Hargeysa isagoo dhex jooga waa 2019 kii dhawaa
ayuu wuxuu yidhi annaga waxaan rabnaa bisha 26 June in maaragtay loo dabaaldego oo nala ka daayo 18 May aad iyo aad waa gartay si fiican isug bluetoothkiya kaa go'ay wax yar aan ku xidhay ku jir sheergarey barnaamijka sheergarey waa gartay ku soco ninkii sidaas ahaa ninkii xildhibaanka ahaa hadda waa xildhibaan oo ay leeyihiin xasanad buu leeyahay ayaa wallaahi oo bilaahi watallahi 2 bilood buu xidhnaa ismaaciilow markhaati baan kaaga ahay aad iyo haddaan soo xasuustay xildhibaankii oo ka hadlay yacni juun hala joojiye baashi maxay meeyhana laga joojiye yidhi oo dhulbaanta ahaayoo xabsiga la dhigay oo intaasoo habeen xabsiga ku jiray intaasoo beri xidhnaa habeeno ma aha bilo dhe war 2 bilood buu xidhnaa waa gartay cid isweydiisay muuse biixi baa yidhi horta war ninku waa xildhibaan war xildhibaankiisa mooyaane gudaha dhiga waa gartay waxaa loo sheegay inuu yahay marti ku yahay Hargeysa marti edab daran inuu yahay baa la tusay waa gartay marka Cabdi Xaashi waa marti edab daran horta 2 bilood loo soo xidho sug si fiican lagu maqlay war barnaamijka sheergareeyo Cabdi Xaashi wuxuu noqday baa la yidhi marti edab daran anigana hore waxaan idinkugu sheegay Cabdi Xaashi intii burburkan uu jiray xamar kama bixin hawiye walaalaha reer hawiye oo runtii dad gob ah lagu dhex noolaan karo soomaalinimada jecel oo waxooda lala cuni karo ayuu marti u ahaa oo gabar baa la siiyey yacni waxaa waye seedib buu ahaa waa xuquuqdiisoo dhan baa la ilaalin jiray maantana burush xaarle buu wataa inuu mariyo xamar ka soco waa marti edab daran bartaas ka wad wallahi xamar waxaa ka sii daran burush xaarle ba ha mariyo xamare waxaa ka sii daran dowladnimadii yareed ee soo iftay sidii inaadeerkii Cumar Carte Qaalib inuu maaragtay dhulka la galo haddana mar kale mar labaad waa sheekadii jabhadaha hubka ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhisnaa markii ra'iisul wasaaraha laga dhigay jabhadaha hal isu dhiibo waa ninkii yiri hubka lagu wareejiyo Soomaaliya burburkeedii maantayto min ajli dalika wax allaale wixii Soomaaliya ka dhaco asaga ka mas'uula Sooma oo aakhiradi wax ma laga weydiinaya absolutely dowladnimada la soo qaban waayo ninka ceel dheer ku riday Cumar Carte Qaalib buu ahaa waa gartay maamulka lama baabi'iyo maamulka dowladda saruun baa isbedeshay laakiin maamulkii buu xididada u saaray waa sax aad iyo aad marka maantana sidii oo kale ayuu Cabdi Xaashi rabaa inta yaree la isku keenay inuu kala firdhiyo waa sheergareey barnaamijka 900 ruux oo qadka ku jirta sheergareeyso meeshuna waxay ka dhacaysaa ninkaasna hawshaasna waxay ka dhacaysaa waa xamar waa gartay xamar markii nin dhulbaantay uu ka hadlay Hargeysa uu yidhi 26 June hana loo soo celiyo ayaa la yidhi niyow marti edab daran baatay horta laba bilood soo seexo jeelka hadda marka waxaad codsanaysaa Cabdi Xaashi waa marti edab daran in ladin soo xiro anigoo gudoomiyaha beelaha hawiye ka mid ah waxaan codsanayaa oo waliba Xasan Xaad u sheegayaa war gudoomiye ninkaasi faryo suula laga soo qabto wadanka meeshii wadadii Cumar Carte Qaalib buu ku wadaa waa the second time uu rabo wadanka dhan in la kala diro oo meeshaas lagu kala yaaco wixii yaraa la isku keenay marti edab daran weeyaane 2 bilood ha la soo edbiyo ajaa'ibat dunya aad iyo aad waa maanta ninkii dhakool ahaa xildhibaankii dhakool wallahi oo billahi xitaa mikrofon xitaa salaamu calaykum qof ma yidhaahdo xildhibaanimadiina wuu iska haystaayo dadkii buu isaga dhex jiraa gogashii loo dhigay akhlaaq buu ku fadhiyaa xildhibaanimadiina wuu haystaa war yaanyada dumarka masaakiintas laga soo guro ayaa lagugu biilaa oo $3,000 laga siiyaa bishii markaasaad leedahay 18 May annaga ma rabne hana la ka bedelo marka waxaad leedahay Cabdi Xaashi wuxuu cunay qudaartii canshuurteedii dekadii canshuurteedii ganacsatadii reer Muqdisho canshuurtoodii yaanyada dumarku ku iibiyaan suuqa ayaa canshuurta laga qaado la siiyaa
waa gartay Soomaaligan markaa waa marti edeb daran waxaan rabaa Cabdi Xaashi wuxuu rabaa Cumar Carte dariiqii Cumar Carte dawladnimadii Soomaaliya mariyay inuu mariyo asaguna ummadda Soomaaliyeed maanta warbay kaaga fadhidaa ka soco warkaa ummadda Soomaaliyeed ha maqasho reer Muqdisho waxaan leeyahay hawiyow sidan isu dhaama war sidan isu dhaama oo maaragtay ninkii idin hiiliye u hiiliya madaxweynaha Farmaajo hal baan leeyahay isaga mudane madaxweyne waad mahadsan tahay haddii aad hawiyo aad dhahday codkiina ayaan idiin soo celinayaa codkiina ku ciil baxa Soomaaligan aad iyo aad anaa xaalkaa maranayo xaalku siinaya haddaynan ku fahmin maantana waxaan hawiyo u sheegaya war hawiyo war isla xishooda ad korkiina yaan lagu shixin shaxda korkiina yaan lagu shixin war heedhaha iska qabta ninkaas oo kale Cabdi Xaashi oo kale fariyo suul waa inaad magaalada uga saartiin waa inay guddoonka beelaha hawiye ka hadlaan waa inay iska qabtaan hawiye waxaan intaasaan uga baxayaa waa inay fahmaan doorashadu waxay ugu fadhido qof iyo cod waxay ugu fadhidaa xornimadooda iyo waxay damacsan yihiin iyo waxay jecel yihiin ilaahu mu noqdo kii gabdhaha diraya ee gabdhaha gadaya inay u codeeyaan we don't care about hal su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo mudane gadoomiye adoo raalli ah sax Cabdi Xaashi programkan yaa ku soo shubtay xagee laga hagaa yaa ka xun xamaro qof iyo cod ay noqoto oo doorasho ka dhacdo dadka dhibka ugu jiro ama qolada maanta ay dhibaato ku ah yaa waay Soomaaliyeed oo isleedahay way farabadan yihiin dad badan oo burburkan dan u tahay baa jira halo ma maqlaysaa si wanaagsan 900 ruux way farabadan yihiin in dawladnimo aynan ka aasaasmin Soomaaliya way farabadan yihiin dadka danahaas wata wax ku soo shuban kara hadday tahay Emiraadka hadday tahay even reerka uu ka soo jeedo waliba taasayna u badan tahay waliba waa gartay ka waran gudiyadii uu magacaabay uu ka mid yahay Faroole Jurilla iyo ninka la yiraahdo Faroole iyo Jurilla iyo Fartaag rag uu magacaabay iyo nimanka Cabdullaahi Cabdigaruun Xuseen Maxamuud oo racweyn ah ragga nooca oo meesha iyada iyo yani wuxuu ka tagay seedigiisii Muuse Suuday wuu ka tagay Abdi Xasan Cawaale wuu ka tagay oo senator isla yihiin maxaa koos gareeyay raggaas inuu ka saaro hataa ku soo dari way Cabdi Xaashi way waa isma dhaantiyo dhasheed wuxuu sirid kuwan la jaan qaadi kartaa jaanjaaniinta ee sida kala ah Soomaaligan aad iyo aad waa niman aad levelkoodu u hooseeyo oo inay wuxuun burburiyaan damacoodu yahay on aragti maaragtay waddan dhisid iyo aanan ahayn asaguna maadaamuu yahay qaran dumis de wuxuu soo raadinayaa jaajuus oo miidhan Farool oo miidhan Fartaag oo miidhan bal waxaas qashinku soo goray bal fiiriya oo uu weliba ku tilmaamayo guddiga maxayga u dhaxaynta iyo soo dhaweynta gobolada iyo maxayga garta igu jir Soomaali waxaan rabaa inaan u sheego maadaama hadda 900 ruux aad tiin hal arrin baan idin weydiin war ma Cabdi Xaashi haddii maamul goboleedin loo yeerayo asiga horta yuu matala maamulkeebuu ka socdaa Cabdi Xaashi adiga maamulkaaga Cabdi Xaashi adiga maamulkaaga Somaliland waay Somaliland Muuse Biixi oo aan mucaarad lahayn oo gudubbiirsi gaar u taagneen oo samaroor qolada la yiraahdo nimankan la yiraahdo ii sheeg adiga reer qoladan ii sheeg adiga oo Sool iyo Sanaag oo kula socdo ma keeni kartaa dadkan yani ma keeni karaa way arintaas ka waran soo yani maamul goboleeda si uu yeerayo maxaa ka qusay asaga Allah kugu dhaashay horta waa waalida ka jirta xamar waalida ka jirta waxa weeye Cabdi Xaashi oo kale markuu yiraahdo maamul goboleedyada iyo dawladdan isu keenaya war aaw isaga TC miyuu keenaya inuu iska waxyaalaha cajiibka ee waalida
ويا أنا أفكر والله وياي كسر قدامي بل أنت صمود ففاهي أصير حاجة وعوي لنا وحبك كل إيمان وإسقي وتيسي أنا نهين أيها كل واحد سكينية وعجيبة ما ملك بلادية يوم دولة الدحين أيها ندحينية أو سكينية أو وهذا ما نجا وعالم دي مركا أنا جا حسين نجيه بانو ملايا ومركا لا وراوي هو السيدتي هويو مركا كوركي نوحة لوشة حياة وحة اللي نكون يردين أيو مع سيدتي يا بستقوين هويا بستقوين بالصار أنا ملايا بلا يكون عادة دوفار لشيء يا وروح أقول على كل حال ninkaasi bal tiisiiba aanan hayn oo gacan ku hayn ayaa raba inuu dadka u taliyo oo uu talinaya daawiyo weligeed loo talin jiray waa sidaas anigu saan u arko horta Soomaali wax bay isku darsatay adeer macaan for example hadii maanta loo baahdo koonfur galbeed senator meesha uu joogo loo diri kara hadii in la keenay noqoto kow Jubaland senator ayaa matalo oo waa loo diri kara hadii in la keenay noqoto mi maqlaysaa يسوق أتكا واحد ما قدامي سك شير قريب برنامج سقالك بقول أروح ما حاتري وعاكولي هذا كان اللي يوديني السؤال تصالح كاغا سوقاتي مر هore waxaan ku dhahay tusaale waxaan kaaga dhigay odaygii dakool Hargeysa aragtidiisa ka hadlay waa sax way kii ninkii martida aha marti edeb daran noqday aadiyaad waxa lagu yiri war maxaad noola timiday maxaad nagu darsatay ugu dambeyntii maxaad u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed oo aad leedahay horta weli ma dhamaysanay horta ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay weliba gaar ahaan meesha ee xamar joogta iyo dadka xamar ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa degan xamar waxaan leeyahay xamar waxaad u banaan baxdeen oo u soo baxdeen inaad cod yeelatiin codkiina inaad ku ciil baxdeen oo one man one vote aan waxaan ahayn aydan ku qancin ayaan furayaa horta oo aan maaragtay ku adkaynayaa inaan la marsiinin waxaan imika loo dim iyo deg leeyahay loo dabaaldegay oo nimankaa faroole iyo waxaas waa codkan qof iyo cod suunan u dhicin ayaa dim iyo deg loo leeyahay oo la isku haystaa marka xamar ayaa bedeli karta waxaan xamar oo dadka xamar degan muqdisho degan way bedeli karaan jawga dhan bay bedeli karaan hadda intay isku soo baxay yiraahdeen one man one vote ayaan rabnaa qof iyo cod baan rabnaa wax kale ma rabno taas ay ku cilbaxayaan taas ayay maartay taladooda lagu maqlayaa nin aanan muqdisho u vote gareyna waligi madaxweyne ka noqon maayo Soomaaliya runtaan idin sheegaya taas markaan ka gudbo waxaan leeyahay xasan cali khayre ayaan istul taagaya war xasan cali khayre mudane ra'iisul wasaare waa odaha wiya waxa kula hadlaya maxamed muuse oo from Holland maartay kala soo hadlaya karamida gudoonka beeraha wiye ee xamar jooga oo xasan xad ka yahay gudoomiyaha xasan cali kharow waxaan ku leeyahay kursigii beeraha wiyaad ku fadhidaa hawiye iyo ummadda Soomaaliyeedna waa ku garab taagan yihiin anigu waxaan garan lahaay waxaad u talin lahaydeen ee kursiga aad ugu fadhidiin ayaan garan lahaay ilaa maanta agtiina Ethiopia joogto cid isweydiisay laba bisadood isma hirdiyeen waxa loo kordhiyay abiyay ayaa loogu daray ama uu soo ku darsaday maxaad idinku adiga iyo madaxweyne Farmaajo dee haddii aydan talin karayn oo ileen aad hogaamin karayn ummadda Soomaaliyeed oo ninka soo madaxdii waa inuu taliyaa oo wax keenaa miiska oo yiraahdo sidaas weeye ما هنا مارك لما يريستي دتك ورهذا الشيء وما له دم باكو قد وفيشن أو يو دم باكو مارك قد وتاعن سو ما قال ما حد قاعد صوريسا عد واحد إنك أورن كرسا أما سو واحد إنك قاعد كرتا ما جرتو خير أنت صار ليه
ama taliya ama meesha dhaafade oo alla keeno dad talinaya meesha wallahi billahi saddex wallaan ku marayaaye xasan sheekh haddii covid 19 ku soo geli lahaa sidan oo kale wallahi 2 sano ku dirsan lahaa wabillahi waa bahal nin walba tiisa la sheegaa xasan sheekh gabdha iibiye wallahi oo xanuunkan soo dhici lahaa 2 sano ku dirsan lahaa 2 cali isma weydiiseen marka mudane khayre xasan cali khayre waxaan ku leeyahay taliya kursiga ninka ku fadhiya talada waa inaad talisiin haddii talin karayn dee mark dadka lu goynina dad talaniya imaanaya u baneeyay meesha farintaasaan leeyahay ra'iisul wasaaraha ku soco waxaan kaloo rabaa arrintii maxay ahayd dee anigu horta waa intii farintan dhiibi lahaa waa dhiibay haddaad wax su-aalaysid aday ismaaciil soo daa hal su'aal baan ku weydiinayaa awiya farintii awiya waa dhiibtay hal su'aal farmaajo madaxweynaha waanu mahadnaqay inta uu isku dayey inuu hawiye maaragtay cod siiyo oo yidhaahdo ku cilbaxa codkiina aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha xasan cali khayrana waa inuu fuliyaa amarka madaxweynaha 1 man 1 vote wax kale Soomaalidu idinkama fadhido wax la soo dhoodhoobay Soomaalidu idinkama fadhido ilaahumay sanad iyo dambe qaadato markii 1 man 1 vote la keeno qof iyo cod la keeno ayaa doorasho dhici doonta haddii eebaydmo intaasaan Soomaali leeyahay hal su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo gadoomiye odigan inuu horor yahay oo caasimadii iyo sumcadeedii iyo karaamadeedii iyo soomaalinimadii inuu majaxaabiyo waa loo jeedaa dariiq asagoon xabsiga la geynin miyaan la samayn karin in baarlamaan baa meeshii joogo golo yani dad wadaniyiin baa joogo labadiisu ku xigeen iyo asaga waqtigan xaadirka ah xaaladooda meel serious ay maraysaa marka qofka markuu noocaas oo kala noqdo qaabkee sharciyana loo mari karaa horta aniga waxaan kugu soo hadal qabsaday wixii ka dhacay Hargeysa not so far ago mar aan fogeyn oo dakool kaga dhacday arrin yar oo basiid ahayd ma doorasho iyo wadan dhan oo majaxaabinayo ma Soomaaliya nagu dara muudhin hada wuxuu yiri 26 June noo soo celiyay kaliya Soomaaliya tiibu ku muteystay xabsi marka haddii aadan meeshaada xukumi karin oo aadan dhahi karin shinac buriya martibaatee marti edab la yeelo haddaan la dhihi karin dee saasaa lagugu durdurinayaa waddanka dhanna waa saasaa loo qallibayaa 91kiiba maaragtay inadeerkii weeyaan weliba waa isku laf hoose inadeerkii Cumar Carte ayaa sameeyey waxan maanta ilaa iyo maanta la soo qaban kari laayahay soo ma garan maantana sidii buu rabaa Cabdi Xaashi wax badan baa lagu sheegay waa wadani been badana soo ma garan socon mayso waa in sharci waa la marin karaa sharciga la marin karo waxa weeye ra'iisul wasaaraha ayaa kala diri kara oo ka soo saari kara amar maadaama executive-ka yihiin way kala diri karaan waxay leeyihiin warkaas ma soconayo waxa kala keena madaxweynaha kala diri kara oo awoodii leh soo ma garan waa guddi hoosaad وإيكال إسماعيل وجودي هوسات أون معنا لهين وحوين كم فردو سومالد وحوين بوركين لكن وحوين معها لكن أساق وحن أنت بتاعنا سيفيان أساق وحن أنت بتاعنا وحوين بدرنا وكنا قميو أساق أو حمر يوم مقدشوا مرتكو سيدو أدقميو أو ربا ودن كدن إنه كلا فرفرو Soomaal garan marka ayaa u soo dirsaday ma Imaaraadka soo dirsatay ma Somaliland ba soo dirsatay ma Garowe soo dirsatay bal hal la weydiiyo cid uu shaqeynay waa qarandumis kaliya qarandumis qodobka qarandumis in lagu qaadi karo way asay sharciya absolutely jazakallahu khayr aljazaa cimrigaaga ilaahay noo dheereeyo marxaatiga nool ee Soomaaliyeed markii xaajadu ay jahwareer markuu dhaco qofka kaliya maanta ito insha Allah ta'ala ummadda Soomaaliyeed daaweyn kara tahay aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa qiimaha waqtigaadna siisay
waad ku mahadsantahay mudane gadoomi haddaad wax kale soo xasuusato fariin soo qor si isbishaal baa lagu soo wacaya insha allahu tacaala ما واد ما سنت أنا كنت عندي لها وانا خير وفرينتي وأوجد بيجي هذا انتلين ماشى طافة يعني ما أعرف نحرس متى الله أما ذاتك مدح كقراع وهي كويل الدروضة ما عرفتي الصومال ما عرفتي هذا عرفتين هنا قرن كتدومني الدومني يان وين سيدك دقة أو ما عرفت ده كل والله أرك قرن كسو كدومي كرو سيزي وكدومي كرا 91 كي والله أرك راديو فريست عمر عرتي قالب راديو كلي هذا هو الراديو I was there أنا حاضر بنا and راديو فريست وري and هلا شو ديبو and جب هذا that's it وحي وناس أسوق كلا بربرين ما أنت أنا وحلاي مامور قبل هذا هلا شو ديبو مياه عبد حاج وسيدي والله مدوي ما تمركا هذيك كلمة في عن أياد وديسي أنا جاي وديسوتي وريد أرسل كوا كلامها اللي سودي هلا كأنه مرة دولة يد معمول قبلين أيان أود حياة تلو كيسي مو وتايسو تيسي انتوك هيا ما هيا قعنو قمجرت ما قعنو قمجرت والله شغال تاني بو الشركة نقولية هاي تادي بو شركة كقولية مقدس شركة كقولية aad baad maasantay gadoomiye qof kale soo dhaweynaa barnaamijka la sheer garay koob laba ma joogno insha Allah maasantay gadoomiye jazakallahu khairan jazaak gadoomiye aad buu maasan yahay waxaan rabaa umad inaan u sheego Abdi Haashiyow marka hore waxaa la rabaa adiga maamul ba meeshan u joogta kursigaagi ama meel ba laga soo doortay bulshad matasha maanta ma ahan inaad adiga aad bilowdid hadal maxaa yeelay nin waxaa tahay bulshadan Soomaaliyeed ku dhax nool baad ahayd sharafna waan ku haynay laakiin haddaad adiga wajiga xaara iska marisay de anakana waa yani hadduu ilaahay ku roon yahay hore aan ku sii buufinay waa ku buufinayn hadduu ilaahay idmo maxaa yeelay ummadan Soomaaliyeed xal uguma jiro in mar kale cadawgii ummadda Soomaaliyeed qaran dumuska ahaa awood ay yeeshaan oo dalkan yani muxuu ahaa doorasho ay soo fargashtaan howlaha maarkay muxuu ahaa deegaanka ay gacmaha la galaan ma noqonayso maxaa yeelay dadku waxa loo baahan yahay markii wax la isku darsado adiga waxbaad ku soo darsatay qarannimada Soomaaliyeed dhiibtaad ku soo darsatay inaad la timaadida loo baahan yahay intaas waxa waaye intaasaan ka leeyahay Abdi Haash waxaan leeyahay marka aniga waxaan rabaa hal fikir inaan u soo jeediyo Abdi Haashow guddigii adiga aad magacaawday waa been waay waxba kama jiro shacabkii Soomaaliyeed baa diiday cid maantay torno hor keeni karto wallaahi oo billaahi tallaahi inaysan jirin inuu Faroole iyo Jurilla iyo Cabdullaahi Abdigaruun iyo Hebel Dhuxulow iyo ma arkino muxuu ahaa Fartaag intaad noo soo dirto wallaahi inaana kaa yeelaynin ha ku daalin guddigaas iyo adigaba warkiini waxba kama jiraan warkiini waxba kama jiro shacabkii baa ku diiday gurmud qaran baa ku diiday adduunyadii baa ku diiday Soomaali baa ku diiday yani ilmaha hadda kadib ee Soomaaliyeed oo dhalan doona ayaa ku diiday dan noogama jirto waa cadowga ummadda Soomaaliyeed waay midda maamul goboleedna waxa waay fikirkaaga waa kii Cumar Arti Khaalib waay waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo walaalkay ama walaashay insha Allah ta'ala assalaamu alaykum hallo dadaan qad haysanin ba iska kaysoo wacaya walaashay aan soo dhaweeyo walaashay Faiisaan soo dhaweeyo walaashay Faiiso ditooraysa Faiisa السلام عليكم اسماعيل Faiisa soo dhawow walaashay macaan caafimaadka ka waran soo dhawow barnaamijka hore u gudagal waxaan la yaabanahay odigii Abdi Haashi ahaa khaatamo xumadu ku dhacday baan la yaabanahay bal barnaamijka hore u sii gudagal اسماعيل waa dhawahay waqtiga inaan ka cunno marraba wax yar oo xoogay waxaan ku darsanayaa qalbi jabinta reer u jeed xuna aan waqtigana kaaga dhumin waxa jiri hadda ka hor dawacadaas waxay u imaan jirta naag ilmo yar yar oo agoon haysato adi xoogay xoolaa u xariisan meelaha baadiyaha habeen walba inta timaad ay neef kala bixi jirto
ama ri ama waxar ama cunug la dhalay naagtu waa soo cabsataa oo dawacada uma soo baxdo gudahay ku jirtaa ariga marka uu kala bar noqdo laba agoonay ayadana guri ku jiraan cawada dambe waxay tir alla ilaahay nin aan raadsado dawacadan iga celiyo bahal wiil oo muqa ku say heshay waxay tiri warheed nin yahow dawaca xoolay iga dhamaysa agoontaasaan haystaa wax yar oo tir adigu kontan ha haraye laba tir ayadaaba cuntay laba tir waa 200 hadaad maqasho ayadaaba cuntay nin yahow warsharkay barnaamij ninki wiilki wuxuu yiri war waa ku guursaa uu yiri anaa igaan muqa ku soo dawacadana ka qaba wax ku badbaadahay waa ku guursaa bal fadal idhe waa ay guursatay naftay u cabsaysa gabar xoogay fulay oo xoogay dadka laga roonyay ahayd oo geesi ahayna markay guursatay abay dawaca awada dambe soo mashxarada ilaa meeshaas ay biyo uga baratay mashxaradeeda Allahu akbar ninkay xal soo guursatay taabatay murquuskay taabatay gabartii waxay tir war heblow waa soo mashxarada bahashan ka cabsaayay ka 4 saac habeenimo markay taa waa baxiyay nin ragaho ahaayo ma aragta oo xabaadi aqoonah dawacada markay gudaha gashay bahal riyo isku duubtay oo gadaal inta uga yimid oo sayn dheer leedahay bulush leh saynta dhikasi waa naftu ka qaadiyo marka uu dhigo yir heblo ay soo baxay tir ma ay huftaa inay dhimato dawacada asoo yir nacam waa soo agistaagtay markaasay tiri markaasoo markay saan u fiirisay tiri intaan meeba shirna intay xooleyga dhameeysay tiri markay sidaas tiri waa isaga jawaabay markaasoo yiri walla dawacay annana ku helay adna ku xoolo beeshay yiri walla dawacay annana helay adna ku xoolo beeshay hadda sheekadaas waxaan ka wadaa reer u jeeda xun waa gartay Allah markaasay ayadina saaf inta u dayday tir dawac meeshay macal uga baratay macluul uga dhimata ninkaanu iiga madarin dawacadii uga dil ayadoo la sii ganuunacay sii baxday asna wuxuu yiri adna ma la aan kugu dhacdo yiri annana helay yiri risaq saasaan ku kala baxnay dawaco inta jiido tuura gurigooday galeen marka waxa way dawacadaas waxaan ka soo reer uburi iyo reer imaaraat waa magacyo badan yihiin nimanku haddaanaba kuwaas ku ka foolxunaanaba dhin afkeena islaan oo xishoonaay maan wax walba laga istaahilaan marka reer cidaan waxay u barteen reer u jeeda xuna ismaaciil in ay inta wax yar sug hadalkaaga balaan kugu xidhay bilaayana soo wacaysa kale ku soo reer u jeedun waxay u barteen reer u jeeda xun sida cunug yaraay darad soo heesaayo kale iyo sida suma wallahi iyo sida kii firinba lahay waxaasay u barteen ku soo shacbahan sheekadaas waa dhamaatay wiilki dawacada ku soo shacbahay wada noqdeen ayaga dhan waxaan u leeyahay reer u jeeda xun sheekadaas waa dhamaatay meeshan Soomaaliya soo jeesatay dawlad fiican ay heleen dad dhisan ay heleen dad aan dad shisheeyaha ka cabsanay heleen dad bal u soo jeeston baahi u imaan baahi ku dhaganaynay heleen dad diinta Soomaaliyeed inay xafidaan soo jeestay heleen dad raas kaboon raas asayr xafidayaan anna weelna waana ku daba feeshanna heestay habeen hore soo dhibeen waa artay inta discount tir kulligood saasan u wada taagan oo wada dayayna heesta hore u sugayno waayo waa soo baxay anoo jaahil oo saratan kor fadhiyanay soo baxay maqlay waan u taagnaaba discount aan ku sii horaan ka xirma fuulsan baan kulaya marka waxay heleen dislike ma tiri dislike يا dislike ka asana hebel xaashi waxaan ka codsanaa Ismaaciil wiilkaygu inta roon waqti kasta dhuma wadanka xilligu lagu soo shaacbaxay waa ka tagi xilligu lagu shaacbaxay waa ka tagi mideeda kale waxaad ku ogaataa nimanka nabadii nolol ilaahay ah alle unta wato waa dad la wato fiiri summa wallahi ya sheekh shariif laga qaado ma arti sheekh shariif dambe darajaale wajigiisa u qabtaa canjaalo gabarka gubatay suuxu digtay aawis summa wallahi yiri oo gubta asaga dhan حسن مكان لله عبد الشكور صبح وير حديث كيله هي يري اسقو دك درولا لكن صبح لا لكعي المير راهن بدل كشقشقاي قحوتير كجرو يان يرعوناي wax islaam ku dhufsada ayni kala kacdo waa la kacay war wixii nimankan u tago waa la kacay ilaahan ku dhaartay ilaahay baaba nimankan soo diro dalban soo diro waa la kacaa sidaas aawad cabdi xaashi waxaan leeyahay nusbiyaaj abaad baahdo waayeena on ridideenaan ka bixi karna diiqada soo gashay taasan ku kala ridaynaa nooga baxay daradaada meesha aadna meeshaad ka soo jeeda annaga isnadiifayna markaasaan reer Hargeysa u tagayna bal marka annaga aan cabdi xaashi iyo qurunka iska bixin reer u jeeda xunooda markaasaan annaga oo dhisan qasabna u leeyahay haddaan reer ka furnahay nimcaan haysanaa beeraan haysanaa dadwaaduunan haysanaa qurxaan haysanaa odayga jiiska ah hiiraan hay goboladan dhexe haysta magaceedu maxaa la yiraahdaa hirshabelle ku leeskiir haystan biriyan qashin ku dareynaa in nadiifa wiilkan la yiraahdo oo goboladan aad u dhalatay qabsaday Soomaali galbeed magacyadan galaal laga keenana
koonfur galbeed waa jamhuuriyadda Soomaaliyeed waaye meel kaama jirta ka soo meel kaama wiilka qabsaday iyo waxaan nagu filan midka hadda galmudug qabsaday iyo waxaan nagu filan odaga jiiska aan tuurno war markaas ka bacdi mana u baahnin annaga ma aragtay nimanka la yiraahdo Puntland fadhiyo magacyada faashaxun reer Imaaraad uma baahnin reer Hargeysa uma baahnin reer Garowe annagoo nimcaysan inteenaas markaan iska bixino midkaan xumo hadda jiiska reeraha markaan bixino intaana beerihiina ku yaalaan webigiina ku yaalaa badina ku taala hebel xaashina maxaa loo bariyaa iyo wixii la socdo mid kale xataa maanta lahay ma soconayso in Hargeysa ay ma aragta la hadasho waa mid kale baarlamaanka noo fadhiyaa lahay weji ku sanadna war naga bixiyo naga reebo gudigiirsan bis naga daadiyo isaaqa meesha noogu aruursan kulligood Hargeysa loo dir ma rabne markaas ka bacdi nimcada iyo beeraha aan dhisan أنا كم تدنا لبعض من الدلك النهار يستوي ما كان كم تدنا قرنا عنا بحن ليه نقول أنا ساقر رير بوساسي رير جيس أنا متعسان هقولها هذا النومات جزاك الله جزاك الله هو أبي وما سنتهي رنتي وعدنا قعنت صوتك تي ولا شيء قارئ أو رروقي أو حقنا أهيل سديارة يوتهي ولا شيء قارئ ودفاع قرن أيا قعنت صوتك تي سودو أيان لنا هاي دفاع قرني هذا كل بواد لسه طبعا وملانا يا أوديك أديركها وحنولي مدوال أركتا بالبرنامج كان هراء وسيجودجل. السلام عليكم أوديك أديرك أنا بكاغ فعليا بربابا. خرطوا على هيستوريس ومدة الصومال بلوا ذاك أنا وانسحي وايي ووحبا إنفورميشن يربان هلاي إنفورميشن كي سيفيان وانوسحي وايي أوديك أديركها عبد حاشي هيستوريسي بل ومدة الصومال بلوا ذاك هذا الرالي أنا هيستوريسي ما قال لك هلا هذا عنك أركب الدنيا بوه سنوات وتيجي هذا كهلاي لكن أنت هذا عن سوء وهذا شركة عن مركو كان يمجعارستان جرلا يفرع يفرتك يمركو مجعارة عن أرض قلنا عن تيفيرس وقلنا ما فهمت واقرتي أول مؤمن أول يستيس المية وحاب تاس كينا يا وحيتاي adiga hadda ninka gudoomiyaha baarlamaanka beelahan uu matala sax si wanaagsan maxamed mursal waa gudoomiyaha baarlamaanka aad iyo aad qof waa gudoomiyaha qabiil waa beesha 4.5 lagu qaybsado Soomaaliya inkastoo Soomaaliland maqanta hadana 4.5 inta hadii la maqnaayo hadii la joogo qabiil wax lagu qaybsaday ninkan waxa la yiri aqalka sare adiga ku fariiso okay aqalka sare maanta uu ugu adeegoyaa dan anaga aan leenahay Soomaaliland haddii loogu adeegi lahaa kama hor imaadeen aniga maanta kamana hor imaadeen weligay ma fahantay laakiin nin ay ogaadeen reer abti u yihiin warkayga si fiican u dhagaysayaa waa lagu maqlaa si fiican nin ogaadeen ay reer abti u yihiin oo ugu adeegan reer abtigiis oo qarandimis ah oo Soomaaliya ku soo duulay oo Kenyaati keenay maxaa la yiraahdaa ninkan faroole oo gabaru ninkan adeer u yahay qaba gabadhii oo dilay faroole gabar walaasheeda la soo siiyay faroole xaaskiisii waa ogeydinay dhimatay faroole ma gabadhii markii xaaskiisii markii wiilkiisa uu dilay kadib ma gabar kale la soo siiyay Hargeysa tagay gabar kale gabadhii la soo siiyay ay walaalo yihiin waxayna qaraabo hoose isla yihiin ninkan la leeyahay Cabdi Xaashi marka waa sodogiisi miya mise seedigiisi waay ada qaraabada iska dhaama sodogda ama seedila daadi wixii rabtid ku soo laakiin qaraabo qaar dambe saas waay dan ta meesha uu ku fadhiyo maanta hadda dad waxay soo qorayaan wax ka qaadi kara nin isaaq waaye no isaaq ma matalo cid uu wuxuu haayeen mar hadduu wax matalayana heegu matala hadduu wax matalayana habara wala matala isaaq oo dhan ma matalo isaaq wuu kala baxay isaaq waa hore u dambeysay odagii sanaa ku duugnaa waa hore u dhintay waxba isku manihin ma fahantay dad hadda soo qorayaan wax ka qaadi karo waa laga qaadaa ma ahane waa la jiidaa baktigiisana muqdisho laga bixinaa waa la jiidaa sababtoo ah meesha dan hadduu annaga danteena fulin lahaa kursi direedu ku fadhiya soo dir baa ninka magac direed Soomaaliya aad soo waxa lagu dhammaynayo jubbooyinka soo dir ma ah magac direed Soomaaliya si wanaagsan wat marka muxuu ku fadhiyaa dadkii ku soo duulay jubbooyinka inuu reer abti ahaan u caawiyo oo uu gadgato oo lacag imaaraan laga soo qaado uu ku gato maashafka loogu garaaca SNM waaye hala ogaado SNM wixii dagaalamayna garxajisay ahaayeen garxajisna heega maanta waa fahansan yihiin
xabsiga kugu daraynaa sababta heego qofkii disho jannay gelaysaa حق أو ضد ليه بيرها الدراد أصلا كرسي كفنيه أو بيره الدراد شرع الدراد بس يقول لكم بك أبصر كشر عيانا يا أنا بدي أغادر أنا رأيتك سوريا كم يلا هذا الشيء معنا كم يلا إحنا ماشي كفنيه بس بقى الدراد وماشي كفنيه أجايب المها أبتياش على سكيل عليه كسر أجايبة الدنيا مركعين مثلا مرهن وأضيع على شيء وشقيسته وأضي جد كيس بوحسده إنه سسوان نقوم إنه أغادي وأضي مجيء إيا ماموس كدرات كعياري وأضي كرسي كدرات كقاضي ما أنتي رئيس الوزراء ومدحوينه ومريحان رئيس الوزراء وهوية البرلمان كوحوايا وعبدك اللي مرفي آلاي وحي رفتها إسكا أهاتو دادكاس شقادو ودي هيستان إن كان بيراها الدرات مدح أوه واي محوب كرسي كدرات وهوس جاي كم يلا حد يعسى الرئتويين ولينك أيضا درنا الدنيا كذي ولا بوراي سببت وبشرعية يا مباهنا تذكر ما لنا ويا قبيلة كهلا يا الله أكبر كسر ما قدش أنا ما علينا ما قدش أنا كسمينينا ما قدش أنا ما قدش الشرعي محل سياد برئيس الشرطي يهين تذكر ديارة دي الصومالي إيرلين كأفضل المكسور ديستقر حاجة سيهاين وحي وقوي كدقالة ما يقر حاجس هاي ما أنت نقر حاجس أسرع إلهي ربي وصومالي اسكو دروا بالتاقية الله هذا هوست كفلا أو أفضوب وضطو أو نع وضطو أو درندابية وضطو أو دلقبطي أو وحوى البقبطي أو هدو قدام بيسي حقي بيرها الدرادة الجبوي قربتين أي قربتو أنك أمدك على مينو دولة إيقيسينا وايدين حلال aad baad u mahadsantahay jazaaka allah khayr shaqa laga qaban doona ilaahay idinkiisa cadaaladda la waafajin doona cadaalad buu heli doonaa odayga insha allahu tacaala jawaarey baan ka diidnay inuu dalkan soomaaliyeed yani masiirkiisii hor istaago jawaarey baan ka diidnay asagii maanteeto jawaarey kama awood badno jawaari wuxuu ku fadhiyaa nin walba qabiil u fadhiyaa ninkan beelihii diraad u dhabar jebiyey qarankii soomaaliya u dhabar jebiyey kursigii wuxuu ugu adeegay kabiya lax danteeda wadato dhul islaameed rabta inay afduubato dhulkii samaalo rabta inay afduubato dana hadda samaalo waa yaalaan kara no dhulkii samaalo ninkii dhiiba dhiiggiisa waa xalaal gaar jecel maxaa yidhaha shiiqaal wardaay biyamaal leeyihiin dhulkoodii rabaa inuu siiyo reer abtigiis oo jigjiga ka soo duulay cabdixaashi waa qalbiga madaxaa laga toogto hoogo weligeed baxaaraaray ahayd جزاك الله خير الجزاء ولا شيء معا آدي أدبض ما صنت إن شاء الله تعالى برنامجك وحن كسر دوين يا ويل كاميرا تعطوا طيب كسر دوين إن شاء الله تعالى هي القرن ما صوت من كانت وحيدها يا نكان الله يا عبد حش محمد موسى وضعوانين هبر جبرو عيرة وانا قدوميها بلاها ويا يوروب يا أمريكا وفضي عدي تشوش كقبتو أصوء أدامنا بريني وانا ربتي صببتو حقي بلاها ويا قفك هذا نكان وحوسة ريحة جرية فرتاك إلى فرارة أو ربع إلى يسمى مقدش أبيالا ربع مقدش إلى يسمى دورة شكل قيد قاضنين وصح عبد حاشي هوية نمرك كجبيلي ديرو نمرك كجبيلي وحماش وفنيانا واريابتي بسكبي الله هلا نكتورو الله يعزك وما سنتا ومدو صومال ويقار تضبط بقول روح أيا كوجد إن شاء الله إلى برين وقاري دونا إن شاء الله تعالى وديك والله تلنا دريقي محمد شاسمان جواري أيان مرسينين هدو إلهي إن شاء الله تعالى أبضو ما سنتا أوكي أيه بسم الله الرحمن الرحيم سو دواada shacabka Soomaaliyeed hala shargalay barnaamijku walaalkay waxaan rabaa hiil qaran inaan soo qabto ku soo dhaweeyo inta ku aadan asagan insha Allah inuu ka yiraahdo ahwaalaha qaran dimiska insha Allah hiil qaran salaamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أديكو قرمت قرنا يدمان ولا لها صومالية يدقيسنا برنامج كم حلقة هلا يا أدقي عبد حاشي يوم حكله يو قدقي سي آرنجان أيان كهلا ما شاء الله إلهي ودو إلهي ودو نمبا إلهي بنقول وانينا نمبا وحيري ساسواي نمبا وحو لها لبويل بو أديروها واقرتي لبدي ويلو أديركوها مدبا فريدها صح midkii fariidka ahaabuu maalin aasay marka wuxuu yiri xalaalay kuma qadiyeen xasan cadana kuma geliyeen marka
waxaan ka wadaa xalaalay kuma qadiyeen xasan caddana kuma geliyeen waxaan ka wadaa dalkan dadkii sharafta lahaa allaha u naxariistay uu maxamed siyaad barre intuu ka dhintay khaa'imiintii uu hor joogay uu dhengada ku garaaci jiray inay maantay inoo sheegtaan siyaasi waayaan darrada ummadda soomaaliyeed ku dhacday ayagoo haysta taageerayaal tiro yar oo tabar yar oo tayo yar cajaa'ib ku soco marka ilaahay baan ugu dhowaanaynaa nimankaasi waxba inooma qaban karaan waxnana inooma aha dayo hadday khayr leedahayna dabadeeday dadan lahayd degaanadii ay ka soo jeedaan baa biyo la'aana oo laami la'aana oo carruurta lagu qashaa oo shalay waxaa la yidhi meydya u dambeeyey markaasaa la yidhi kaa la sii sido hooyo 63 jir ah baa cabdi xaashi ay ilmo adeer yihiin baa gurigeedii laga qaaday oo lagu xabadeeyey oo naaska xabad looga dhuftay marka ninka noocaasa oo hooyadii saa loo galay ee ilmo adeer labaad saddexaad yihiin uusan ka dhicin karin ninkii dilay in uu madax inoo sheegto waa ayaan darrada ummadda soomaaliyeed ku dhacday waa gartay marka gruubkaas nafbax bay ku jiraan naftu qaarka damay kaga jirtaa laakiin ninkii odiga soomaaliyeed hiil qaranow oday baan u malayn jirnay akhyaar baan u malayn jirnay nin wanaagsan baan u malaynaynay ciradii baan ku respecta garaynay waa soo dhoweynay canshuur yani muxuu ahaa asagoo maantayto maamulkiisi gacanta ugu jirin baan respecta garaynay somalilan buu yani muxuu ahaa ama waqooyi gobollada waqooyi ayuu matelaa maamulkiisii gacan uguma jiro oo maamulkiisii maanta haddii keen la yidhaahdo anaka kuween haddii maamulaha isu imaadaane hal isu dhiibe maamulada sheekadu waa sheekadii cumar artaqaalib oo kale waaye oo hubka yani muxuu ahaa ciidamada jabhadaha yani ciidamada xoogga dalka yani ha isu dhiibaan jabhadihii oo kale oo maldaxan waaye marka lagu leeyahay maamul goboleedkii awood ha la siiyo oo dani ha loo yeero dani dad baa meeshuu joogo ha loo yeero war odiga asiga yuu keeni kara asiga maamulkiisii aaway waa qodobka kaloo xigo odigii intuu fekeray asigoo yani muxuu ahaa maantayto guddi ahaan u soo qoray arrimahan u xil saartay faroole fartaag cabdulaahi cabdiguruun hebel dhuxulow iyo wax lamida uu la yimid maxay kula tahay arrimahaas bal falanqey ummaddu bal hadduu ilaahay ku ray u faahfaahi dadka noocaas oo kale ah faahfaahinaya dalku 3 cadow buu leeyahay wuxuu leeyahay cadowga Ethiopia kuwa UN-ta sheegto inoo soo shaqo tagay iyo international community-ga iyo nimanka siyaasiyiinta inoo sheegtay 3 cadow buu leeyahay UN-ta iyo international community-ga isla socoto magaca noo sheegtay nimanka iyaga ayo siyaasiyiinta noo sheegtay iyo wuxuu leeyahay ilaahay kuma samadiide dalka Kenya marka nimankaasi waxa weeye waa cadowullaahi waa cadowga ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed first wayna iyaga dagaalka ka bilaabaan second waa in lagu xajiyo caalamka kuwan international community-ga inoo sheegtay danaha ay dalka kale yihiin waxay tahay dalka inay ka shaqeeyaan 135,000 oo mataqaana UN-ka u shaqeeya inay noo soo shaqo tagaan kaliya rabaan oo dalkeenu uu noqdo habaan mansuuran nimankaasna waa inaan si siyaasada iyo si publica oo mudaharaad ah oo caamana aan ka samayno nimanka iyagaana 85 sano jiraan waqti uma harin waxa weeye waa inaan xilka ka dhigno shaatiga waa inaan ka siibno shacabka Soomaaliyeed oo sharafta leh ay ku soo xamaasheen oo caruurahooda ay ku korsadeen oo xaaraanta ay ka samaysteen hantida maguurtada ay ka samaysteen dee maanta waxa weeye waa inaan diidno sida aan kooxdii xaraash qaran oo kuraasta raadinaysay markii madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaraha la doortay raadinayay iyadoon dowladduba bil jirin in mataqaanaa mooshin la keeno oo meeshani ay lacag socoto kuwii shalay aan ogeyn dabadoodii iyo raadkoodii aan ogeyn iyo waxay nooga tageen aan ogeyn oo wiilasheenni godka ku guray oo askartii qaranka yiri qofkii aan $100 raalli ku ahayn meel ka fiican ha raadsado ha ka baxo marka ummadda Soomaaliyeed ma waalanahay مسوامير قبنا مسوحبا إنه دمان عجائب سومالي بلا ويدين كوسع waxaan u sheegayaa dadka hadda markii qurbahan hadda diyaaradaha la furo
dhammaan haddaynan waddamada qurbaha aynan ku mudaharaadi karin dalkii intaan tagno inaan dooxo weyn meel bannaan ah aan ku mudaharaadno haddii aan qurbaha mudaharaad ka samayn karnana sawiradooda oo cadcad intaan soo qaadano iyaga UN-tana aan ku dhahno dalkan Soomaaliya la dhahaa 1960 bay xornimo qaadatay wuuna sheegay Maxamed Muuse maxay tahay dalka hadda Kenya iyo Ethiopia nagu dhegan Suudaan baa ku sii dhegan dal ma jiro safiir dalka fadhiya oo Great Britain ama USA ama Danishka ama Sweden in la hadlaya nabad sugidda Soomaaliya ama booliiska Soomaaliya ninka haysta ama wasiirka amniga la hadlaya ma jiri karto marka dawladda waxa uu sheegaynaa safiiradan inoo fadhiya hadday safiir yihiin sida caalamka safiirku wuxuu shaqada uu leeyahay waa la yaqaanaa waa inuu shaqadii safiirka qabto hadduusan shaqadii safiirka qabanayn waa in ay isaga nafsadiisa maxkamadeeyaan dalkana waa in laga cayriyaa الله يعزك الله يعزك وضمنتي هادي ودلكو محميات كجرو دي هانو شيغانو دلكي محميات بو كجرايو والدين هايستا هادهان ددكو markaas iyaga is xoreynaya go'aan ka gaaraya because maanta Soomaalidu way ka tabar badan tahay Soomaalida 50 iyo xogaagii iyo 60kii iyo dhowr iyo 40kii leegada iyo SYL aasaastay maanta ka xoog badan tahay ka technology badan tahay waraan dirirno amaan dhibanba weynaaba leeyahay ma fahanti وصح واي عادي هذا والله المية فدي نومية إن شاء الله تعالى كورونا إلهي نقد القاضو ومدان صوماليات إن شاء الله تعالى بدبادة دي ومقدس إن شاء الله تعالى وضمنتي سوق بجبي ماما مهمة روينا سوق قبطو إن شاء الله أو كنتي وضمنتي international community قوحو ينقوكو ميسانا يا لعقتن حقاقا أو لينا السيوبو ينقوكو ميسانا يا هادي تلكينا ما ملقبالات كاللغا حوريو oo nimankan waayeelada ah oo wareersan daaqadaha aan ka tuurno cashuurteena baa inagu filan innaga laamiyada dhisan karna innaga gunadan yarta oo faqriga ayna siiyaan ka badan dalkeena ka soo saari karna marka waxaan leeyahay nimankan aan iska qabanno si aan u xorowno khayraadkeenana annaga la soo baxayna جزاك الله خير الجزاء وكوكو سو نقون دونا inaan ku baahan doonaan u maleynayaayo waad maasantahay gadoomiye hiil qaranow hiil qaran aad iyo aad buu mahadsan yahay insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan siiyo rag fara badan baa soo wactamaya uu ku jiro abwaankeenii weynaa farxan xidig rag badan baa maasha allah qad ku soo jiro laakiin waxaan rabaa inaan mudnaan siiyo maamo Soomaaliyeed oo wadaniyad ah oo runtii jecel ummadan Soomaaliyeed okay maamadii waa qaban weyday jaanas bay u yeelan okay hadda qabanaysa laakiin saan maleynaa maamo Soomaaliyeed baan rabaa inaan soo dhaweeyo insha Allah aad iyo aad u muhiim ah arrimaha siyaasadda Soomaaliyeed aad ula socoto assalaamu calaykum ismaaciil عليكم السلام والس واي مالمها soo dhawow ilaa iyo 550 ruuxa qadka ku jirto ummadii Soomaaliyeed kolba xaaladaha jir waad u jeedaa soo dhawow habareer macaan waa ku salaamaya may maqash si wanaagsan baan ku maqlaa habareer waxaan kuu sheegayaa waxa weeye dada kan hadlaayo aad aragto lacag baa lagu hoos wadaa may maqasho si wanaagsan bal warkaan si fiican u dhageysto lacag baa lagu hoos wadaa dada kan armaajooyin lacaga baa sallaxan oo la yiri kala tuura lacagtaana qaata may fahanti waa gartay ilaa iyo 7 bilyan oo lacaga baa xawaaladaha taalla may fahmaysaa aniga si wanaagsan kala tuura la yiri Maryam la ogolaan qof iyo cod Maryam la ogolaan xagee ka galaabali mursal waa nabad iyo nolol waxa la yiri aqalka sareynu ka galaa iyaga maamul goboleedyada matala farmaajo ninka la yiraahdo waxa la yiri hadii nimankaasi ku yuursadaan ma jirto wax soconaya may fahanti waa gartay odaga afar oday baa jira marka afartaasi waa faroole iyo juurile iyo fartaag iyo cabdi xaashi may maqasho aadiyaad Bukhari ninka la yiraahdo waa laba hadlo wuxuu yiri Bukhari anigu shaarkayga hayga wasakhaynina maxaa hay'ad madax banaan baa doorashada wadata aniguna kama hor imaan karo sharci saxiixay may fahmi saas waaye saxiixaygii baa hor yaallo
saxiixaygii baa hor yaalla buu yidhi bukhaari waa iska mayray may fahanto wadocbu uga leexda waa nin dhallinyaraha wax fahmaya saas waay wuxuu u jeedaa dadweynuhu meeshay u wada socdaan may fahan marka waxa weeye wuxuu ka cararayaa ceebtii jawaaray ku dhacday oo kale yani odig inuu xishooda la rabay cabdi xaashi kolba waan arna ku soco adaa taaban dooneen marka waxa weeye boorsooyinka lacagtaa baa la rabaa in la calfado dowladdana la kala tuuro may maqashay saas waaye dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay boorsooyinka lacagta ayaan la calfan iyaga hal la kala tuuro guryaha loogu galo faroore juurire fartaag in cabdi xaashi ninka la yiraahdo maxay tahay shariif guryaha loogu galo waa gartay aad iyo aad iyadoo aan dagaal jirin ha la yiraahdo haddaa bannaanka isa soo taagtaan oo ka hadashaan doorashadayada wixii idin soo gaara mas-uul idinkaa kaa intaasoo sanaanu qalalaasa ku jiray mana doonayno oday fajiistaa oo cunay afar rac oo dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed bay cuneen intaasi afar rac oo 15 jir ugu yar yahay oo 20 jir ugu weyn yahay oo 25 ugu yar yahay oo 30 jir intaas ay cuneen afar rac bay laareen aad iyo aad may fahamtay dhalinyaro maanta iyagay hortaalla cidda lagu khamaarayo shalana waxa weeye kitaabadooda la gubay oo qoryaha laga dhigtay oo xabsiyada ku jira oo adduunku haysto oo burcadbadeeda noqday oo dahabshiil haysato oo darbiyada Yurub jiifa waa iyaga may fahamtay aad iyo aad intaana dawlad baa ka saari karta maamul goboleedna kama saari karo oday maxay haytay qabqablaah oo 60kii dawladda Soomaaliya xornimada qaadatay shisheeye daba taagnaana kama saari karo may maqasho aad iyo aad waxaan ku leeyahay xaawataaka garabtii la dilay nimankii dilay Talyaani ma ahayn dhagaxtuur nimankii dilay Talyaani ma ahayn kulli Soomaali u dagaalamayo gumaysigii bay ahayd may gaan daba dhalifyay ahaayeen oo kuwa maanta jooga oo kale maanta marka daba dhalifyada waxa la rabaa in la dabargooyo 2020 baynu joognaa in la dabargooyaa la rabaa ninkii laga maqlo niiq imaaraad kiyaati saatandhaha ninkii dawladnimadeena hor istaaga ilaahu ma wiil jareeri noo qabto iska daa farmaajo wiil jareera farmaajo ii geeyo wiilkii lahaa hadduu noo qabto ninkii dawladeena ishor taagta dhalinyaradu guryaha ugu gasho الله يعزك الفرماجي يجي هدي لدون هلو ديو ساسو أنا كوحنا ديغو سناني عدالة دي قرن بانا ديغو قبيل ويعني وكسو دالني هاورير وضمبين كل الدكة الصومالية هذي وحتعبوا لقاقان قبل كشبه لذا هوسا كفلا الصومالي ودن هدي الله تبع قبل كشبه لذا هوسا كفلا تبني حي انتان للجارين قبل كشبه لذا نحو الشبابين كوها يستوى عدوغا بدأ كلا إسماعيل وحبا الله يسوع الشيء ما يفهمتي كو وعلى يري نمانا كان الشباب كاه أو دريريا وحا كوتشيلا وحتى مقالة مقدشة قده هذا أوتشوغا نمان دينتا يهود قاطي أو صومالي ما يفهم واقرت إنا لله وإنا إليه راجعون oo yuhuudi soo tababarnay may maqlaysaa aniga sirdoonka yuhuudda soo tababarnay baali may fahmin waa gartay waxa li nimankaasi waxay ahaayeen baa la yiri 14 bay ahaayeen dagaalkana waxa weeye hadda iyaga hogaaminaya may maqashay waa gartay kharashkana iyaga uga keenaya ilaa Israa'iil iyaga uga keenaya may maqashay arintaan horeyna waab u maqalnay oo shabaabkan dagaalamayo hataa markab ay qabatay dawladdii Masar jiray oo rasaas iyo hub u waday baa jiray oo kanaal Suez lagu qabtay marka way caddahay ku soco nimankaasi waxa la yiri 3 meelood bay joogaan waa 14 nin oo dhawaan oo nimankii hore oo awal sheekada la wadi jiray waa niman cusub baali nimana kale may maqashay waa gartay nimankaasi waxay joogaan baali buuraha galgara waxay joogaan meesha la yiraahdo Almadow waxay joogaan meesha la yiraahdo Bu'aale
waxay joogaan meesha la yiraahdo Xaradheero saddexda meelood bay u qaybsan yihiin bari ma fahmin afartaas meelood ay u qaybsan yihiin afarta meelood bay u qaybsan yihiin 14 nin baa dhawaan soo qalin jabisay waxay ka soo duuleen meesha la yiraahdo